haweenka Soomaaliyeed ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen qoondada 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dawladda walina ma dhicin in haweenku ay saamigooda ka helaan doorashooyinkii la soo maray haddaba sidee haweenku xuquuqdooda uga heli karaan doorashooyinka soo socda ee lagu wado inay dalka ka dhacaan marka dawladda iminka jirta waqtigeedu dhamaado yeysa mas'uuliyadi ka saaran tahay in haweenku ay helaan saamigooda waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Batuulo Gaballe runtii arinta 30% ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay halgan dheer ay leedahay waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan markii ugu dambeysay waxa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dawladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay waxa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood mar waxay soo galeen 12 mar 14 markii ugu dambeysay oo doorashadii ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24% way ka hooseysaa minimumka inta loogu talagalay inay gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka taana waa runtii arin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo ayadoo cududaaro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidayo inay xuquuqda ay leeyihiin ay ku helaan waxaana xaqiiqo ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto waa la isdhacaya waa la isboobaya qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro ama Ilaahay dartii uga xishoona haye Bashiir haweenka Soomaaliyeed waxa u furan in ayaga intay sameystaan community ahaan in intay is abaabulaan ama haween ahaan intay is abaabulaan mabaadi sameystaan qorshayaal sameystaan ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed sameysmaaya xoogagga siyaasadeed jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan hadii qoonda iyo wax ay rabaan ay madaxtooyada xaqeeda uga maqantaa madaxtooyada ka doontaan haday baarlamaan uga maqantaa baarlamaan ka doontaan hadii dastuur sharci lagu qoro ay muhiim tahay si ay ugu jecel yihiin ay cidii markaas dastuurka gacanta ku hayda ay kala hadlaan laakiin intay qol isku soo xiraan inay yiraahdaan rag wax nooma ogola rag xaqeena diidan yihiin waxaan isleeyahay waa eed aan loo meeldayn waxaan rabaa markaa inaan u tilmaamo meesha ay ka jirto qoondada 30% ee haweenka Soomaaliyeed reer galbeedka soo dhajiyeen ma meesha ka doonayaan haweenka Soomaaliyeed ma jirtaba waxaan anu haweenka Soomaaliyeed u faa'iido badan oo dan ugu jirta inay inta iyagu is abaabulaan xisbiyada ku biiraan iyagu haday rabaan xisbi gaar ah oo feminist party la yiraahdo oo xuquuqda haweenka iyo sinaanta iyo haweenku inay maaragtay doorkooda qaataan qoondadan 30% ah dastuurina maahan ummadda Soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contractina maaha waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo rabaan in Soomaaliya raggooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan Batuulo waad maqlaysaa Bashiir waxa uu leeyahay haweenku ha la yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan waa mahadsan yahay Bashiir si wanaagsan uu dooday hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyay dariiqi ay lahayd 30% ma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen Soomaaliya waxay ka mid tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa adduunka xorta ah ama dawladaha xorta ah waxay sameysteen nidaam ay ku dhaqmaan waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha ansixiyay qodobka 1325 ee Geneva Convention haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag ha noqoto ama ha noqoto haween laga tirabato oo la maqooniyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 30% marka 30% waa ugu yaraan ma aha 30% in dumarka lagu ciriiriyay oo la yiri 30% kaliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awoodii Ilaahay uu siiyay oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda mana ka seexanayaan waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ayna fariisanaynin waxa ku maqan
dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacaya ayaa halkaa ka dhasha sababtoo ah maskaxda haweeneyda ay ku fikirayso waa maskax ka duwan maskaxda ragga uu ku fikirayo ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u gelayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u gelaysaa inay sabato bixiso bulshada waxay u gelaysaa in xuquuqda bini aadanka aan lagu tumanin Bashiir Batuulo waxa ay sheegtay in qoondada 30% ee ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyay adiga sidee kuugu muuqataa meesha ma iman kartaba in la yiraahdo dumarka waxa loo siinayaa 30% waa laga tira badan yahay 30% Geneva Convention la waafajina inaysan sax ahayn doodaas horta qoondadan 30% dastuur Soomaaliyeed kuma qorna rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhaxeeyo 30% aan idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliyeed haday golo shacab tahay haday golo wasiiro tahay haday safiiro tahay macnaha position kasta ee siyaasadeed 30% aan idinka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiiyeen ma jirto waa sababta aan u leeyahay waxa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka 1847 ayaa Netherland waxa ka bilaawday kacdoon ay dumarka wadankaas ku nool ee reer galbeedka wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen inequality wax la yiraahdo sinaan la'aan ragga iyo dumarka discrimination iyo xuquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar si gaar ah oo cunsuriyad iyo dhibaateyn loola dhaqmay xilligaas waxa bilaawday in haweenkaasi wadankaas ku nool Netherland 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo islaan la yiraahdo Welma Dakar iyo islaan kale oo la yiraahdo Elina way halgameen 1919 ay urur asaasteen waxay heleen matqaana tixgelintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan Ansiyo Batuulo haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan taladiisa madaxda ka mid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesha ugu hooseysa waa waajib saaran sababtoo ah raggeena laguma aamini karo dalka waayo horay nooga burburiyeen waa inaan la fariisanaa oo la maamulnaa oo wax loo dhan yahay lagu maamulaa kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiyaha wadanka la noqonaya waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxa hor yaala sharciga hor yaala dastuura hor yaala sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan hadii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay ku soo baxdo ay tahay maaragtay ilaan xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqaana cod ka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxdaa haye Bashiir horta qoondada haweenka Soomaaliyeed aniga aad ugu horeeyay sababta u leeyahay waxaan dhihi karaaba waxay adeegsanayaan awood ka baxsan Soomaaliya cidda qareenka u ah ee u doodaysa waa cid aan Soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada midoobe ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobe xafiisadooda waxa yaala statementiyo communique kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa hadaysan ku jirin qaramada midoobe ma taageerayso hadaysan ku jirin midowga Yurub ma taageerayo hadaysan ku jirin Mareykanku taageeri maayo marka waxaan leeyahay war anaga Mareykan iyo qaramada midoobe iyo midowga Yurub Soomaali wax lama laha horta wixii anagu aan heshiis ku nahay ee anagu aan isku raacsanahay waan u bandhigi karnaa waxaan dhigi karnaa nagu taageera haweenka Soomaaliyeed ugu horeyn waxay iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay'adaha shisheeye dawladda shisheeye iyo mataqaana xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maartay taageera marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed tihiin ragga ay adinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan Soomaalinimadii ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo Batuulo xalku wuxuu ku jira sharciga waxaan u baahanahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha midaan ka tuugayna ragga oday dhaqameed dambe loo noqonayna ma jirto asxaab iyo doorasho imaanaysa annaguna doorkeena waxa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddaan qabiil la aadayn
oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama mataqaana annaga nama matali karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaanba ku helaynaa xaquuqdeennii annaguna waa u taaganahay sharciga iyo nidaamka la dejiyana waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 30% ay helaan mana aha 30% dayn iyo qolob waxaan ka soo qaadanay ee waa waxaan xaquuq u leenahay. Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa? haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka tanaasushaan waxa la yiraahdo qoondada 30%. waxaad maskaxdiina ka saara maskaxdiina markii hore kama imaan Soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay Soomaaliya waa ka shaqay waaye 8 sano iyo 10 sano soo tijaabideen ilaa haddana waad ka qayl dhaaminaysaan waxay idinku badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda bilowga ah nidaamka xisbiyada badan intuu hadda bilaaw yahay albaabadiisu soo xirmin inaad xisbiga haween sameeyaan inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameynaya dadka founderska ama asaasiyaasha xisbiyadaas in aad garabka haweenka hogaamidaan oo dooraad kaga banaan xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhalinyaro garab haween iyo qaybaha kale ee bulshada waa leeyihiin inaad garbahaas ku biirtaan inaad xisbi kasta qayb ka noqotaan inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka Soomaaliyeed. intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe nabaday.